markii aan aragnay sharci ahaan inuu buran yahay mooshinka ay soo gudbiyeen xildhibaanada saaxiibadeena sababaha soo socda qodobada lagu soo eedeeyay madaxweynaha oo aan ahayn qodobo sharciyeed ee ah qodobo siyaasadeed taasoo ka soo horjeeda qodobada lagu eedeyn karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida ku cad qodobka 29aad faqradiisa koowaad dastuurka sida ku meel gaarka loo ansixiyay ee Soomaaliya ee qeexaya in madaxweynaha lagu soo eedeyn karo oo kaliya khiyaano qaran xadgudub culus oo dastuuri ah ama ku xadgudub sharciyada kale ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya eedeyntaasi way xadidan tahay dastuurka ayaana xadidan labo tiradii laga rabay inay golaha shacabka hor keenaan soo jeedinta xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo aan dhammayn sida ku cad qodobka 29aad faqradiisa labaad ee dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya kadib markii ay cadeeyeen xildhibaano badan oo magacyadoodu ku lifaaqan yihiin mooshinka in lagu been abuurtay oo aysan saxiixin mooshinka xilka qaadista madaxweynaha kuwa kale oo geeriyooday ka hor intii aan mooshinka guddoonka loo gudbin ay ku jiraan saddex iyada oo ay guddoonka golaha shacabku uusan u marin ama hubinin sharci ahaanshaha qabashada mooshinka sida ku cad qodobka 29aad faqradiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya iyo qodobka 57aad faqradiisa lixaad ee xoroosaadka golaha shacabka ee ku waajib yeelaya guddoonka inuu hubiyo sharci ahaanshaha mooshinka inta uusan qabanin ka hor mooshinkan oo aad u culus tirada keentana ay muxuu u dhowdahay tiradii ku ansaxayay wuxuu u baahnaa hubin siyaada iyo xil iska saarid xoog leh